waan Sweden waxa ka dhici doonta doorashada wadankan Sweden. doorashadan ayaa ka duwan doorashooyinkii hore u dhici jiray wadanka Sweden. waxaan aragtida bulshada Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Sweden ee Stockholm la dhex qaadnay mikrofonka siday u arkaan doorashadani. magacay waxa la dhahaa Abuukar Aadan Deeqo Booscaato. wadankan waxaa deganaa muddo 35 sano ah, doorasho badan soo joogay. markii ugu darneed waa markaan waxaan jeclaan lahay in doorashadan loo wada kaca oo qof kasta guriga ka soo baxa oo la codeeyo. wadanka waa sii xumaaday, waa aragtay xisbiyo cusuriya qabsaday, ummadii mataqaana dhib iyo halaaga loo geystay. haddaana kicin annaga lafeen isku dilnay. magacaygu waa Iimaan Ibrahim Cilmi. taasna waa mid u baahan in codkeena aan oga baxno. marka waa jirtaa in xijaabkii la dhahay waa la mamnuucayaa in xataa ay dhici doonto in dhawaan ay suurtagal noqonayso haddii aanan anaga ka hortagin. marka taasna waa tallaabada ugu fudud ay samayn karaan, laakiin waxyaabo ka culus ayaa imaan kara. marka aniga taladayda waxay tahay maanta ayay taladan saaran tahay. codkii ayaa mar dhow imaanaya inaan cod bixiye noqono, marka aan ka faa'iidaysano. mahadsanid Saabir. magacaygu Maxamed Xuseen Baare, gudoomiyaha warka waalidiinta ee Yarba. waxaan kaaga mahadcelinayaa ugu horeyn kulankan quruxda badan oo aad iga wareysanayso doorashada Sweden ka dhici doonto. waxaan kaaga mahadcelinayaa kala hawsha ballaarada u haysa bulshada Soomaalida ku nool dalka Sweden guud ahaan, gaar ahaan magaalada Stockholm. doorashadan waa ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore. waxaa hadda xukunka soo hayay 4 sano ugu dambeysay xisbiyada dhinaca midigta ah oo TSO Party la yiraahdo, oo kala ah Moderaadka, Kristdemokraat, Liberaalana iyo Isfaari Demokraat waa xisbiga cunsuriyiinta oo 4 sano ugu dambeysay dalka soo maamulayay. waxaanu la soconaa isbedelka dalka ka dhacay oo ay ka mid tahay migrationka markaan soo laabano in dadka sharciyada lagala laabtay ama loo diiday loo cusboonaysiiyo, in dhalashadii laga dhigay dadka inay imtixaan u galaan, qaabilaadda wadankan ama qofkii yimaado cusubna aysan fiicnayn rajada aan wadankan ka helo deganaasho. waxyaabahaas oo culays ku yimid dadka ajaanibta ah. waxaa u dheer in si gooni ah loo beegsanayo dadka madow iyo dadka muslimka ah. Soomaalida waa dad madow ah, waana dad muslim ah. maalin waxaa ka dhacday gobol ka mid ah gobollada Sweden in lagu soo dhejiyay calaamado ay ku qornayd ama u haystay Muqdisho, lacagta aad ku bixi lahayd waa lagu siinayaa. dhalinyaro Soomaalida gobolka degan oo 20 gaarayo darwulinka basaska ayaa maalinta jiros ku qoray oo diiday inay shaqada imaadaan. taasina waxay keentay in calaamadihii laga fujiyo si shaqo la'aan baa wadanka ka dhacday, baska wax wado la waayay. taas waxay ku dareenaysaa cunsuriyadda Sweden xeerka ay marayso maanta. bismillaahi rahmaani rahiim. aniga ku bilaabaya magacaygu waa Maxamed Saac Yuusuf. doorashada Sweden aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. ummadda Soomaaliyeedna waxaan kula dardaarmaynaa dhammaan inay gacmaha isqabsadaan oo ay doorashada ka qayb qaataan. si xurmad leh waxaa loogu sheegayaa ummaddu inay bannaanka u soo baxaan oo codkooda ku cilbaxaan. aad iyo aad waxaynu ku cilbaxaynaa oo aynu arrinkaa kaga hortegi karnaa inaynu cunsuriyadda ka fogaanno oo aynu meel fog iska geyno. waa codkeenna. codka ummadda Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa inay bannaanka u soo baxaan oo ay codkooda dhiibtaan. sanadihii la soo dhaafay doorasho kasta oo ka dhacday Stockholm, Soomaalida musharaxiinta ay waxay ku dhamaysan jireen isqabqabsi. sanadkani loolanka wuxuu u dhaxeeyaa Ilyas Xasan iyo Rashiid Maxamed. su'aasha ay dadka isweydiinayaan ayaa ah sanadkani reer Stockholm ma geey doonaan baarlamaanka Sweden qof ayaga matala. Saabir Cilmi, SBS Media, Stockholm.